hagaag dhegeystayaal imikana waxaa ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad barnaamijyadii taariikhda Soomaalida aanu kaga warramaynay. daraawiishtii Ingiriisku waa uu ka adkaaday hase yeeshee iskuma soo dhaweynin maamulka Ingiriiska iyo dadweynaha. dareenkii uu sayidku ka booday ee dugsigii Dhaymoole la odhan jiray ayaa weli jiray. sanadku markuu 1920 lix dugsi hoosaad oo la qorsheeyay ayaa waxa u socon waayeen markii la diiday cashuurtii xoolaha laga qaadi lahaa magaalada Burcana DC lagu dilay. hase yeeshee waqti dambe ayaa arday Soomaaliya loo diray wadanka Suudaan kuwaasi oo markii dambe halgan u galay sidii dugsiye uga furmi lahaayeen dhulkii Ingiriisku uu ka talinayay. halgankaasi waxbarashada raggii hormoodka ka ahaa waxa ay ahaayeen Maxamuud Axmed Cali, Maxamed Shire Maxamed, Yuusuf Ismaaciil Gandhi, Cabdisalaam Xasan Suudaani iyo Yuusuf Xaaji Aadan. haddaba bishii Sebtembar sanadkii 1930 ayaa kadib markii Talyaanigu ku adkaystay ayaa waxaa la dhammaystiray calaamadinta soodinta u dhaxaysay dhulka Soomaalida inta Talyaanigu xukumayay xilligaasi. Ingiriisku waxa dabeetana uu ku dhaqaaqay in la calaamadiyo soodinta kala qaybinaysay Ethiopia iyo iyaga dhulka Soomaalida oo ay qaybsadeen oo heshiiskaasuna u dhacay sanadkii 1897. si taasi loo meel mariyo guddi labada dhinac ka kooban ayaa walwaal meesha la yiraahdo tagtay bishii November sanadkii 1934. haddaba ilaa iyo intii heshiiskaasi kala qaybinaya qabaa'ilka Soomaaliyeed ay Talyaaniga iyo Ethiopia kala saxdeen sanadkii 1908 Talyaanigu waxa uu ku soo durkayay dhinaca Ethiopia dhulka Ogaadeniya. waxaana la shaqeynayay waqtigaasi dad Soomaaliya oo ay ugu magac dheeraan ninka loo odhan jiray Oldin oo ahaa suldaan ajuuraanka oo awood lahaa lacag iyo hubana Talyaanigu siiyay. Ethiopia la fahanteedu dhinaca Soomaalida ma taageero la'ayn. waxaa ka mid ahaa Cumar Samataro oo Talyaaniga ku weeraray Ceelbuur sanadkii 1926 una gudbay dhinaca Ethiopia markii dambe. goobtaasi dabadeetana waxa isku dhacay ciidamadii Talyaanigu lahaa ee fadhiyay iyo qaar ka socday Ethiopia. Talyaaniga oo midaba ka diyaar garoobay isagu dhinaca Soomaalida ee uu fadhiyay dhinaca Eritrea. dagaalkii halkaasi ka bilowday waxa uu dhaliyay in Talyaanigu si buuxda uu qabsado Ethiopia bishii May 7 sanadkii 1936. dagaalkaasi waxa Talyaanigu ay kaga soo kabteen magaxumadii ka soo gaadhay dagaalkii Adwa ee Ethiopia kaga adkaatay sanadku markuu 1896. haddaba dareemadii xagga wadaninimada iyo fahamka gumaysigu waxa Soomaalida uu ku dhashay marka laga reebo dagaaladii sayidku uu galay ee Ingiriiska uu la galay iyo kuwii bayamaalku ay kula jireen Talyaaniga markii reer magaalnimadu ay bilaabantay oo la degay magaalooyinka ay ka mid tahay magaalada Muqdisho. meelahaasi waxa degay askartii ka soo laabatay ololihii Talyaanigu uu ku qaaday dalka Ethiopia. waqtiyadaasi waxa ka bilaabmay dhinaca koonfurta kulamo hoose hase yeeshee waxa Talyaanigu ay cadaadinayaan macagta ay saarayeen wixii halis ku noqon kara maamulkooda. dhinaca Somaliland dhaqdhaqaaq ka lamid ah ayaa ka bilaabmay oo ay ka dambeeyeen xiriirkii cadan la lahaa iyo mujtamacyadii badmareenka ahaa ee deegaankaasi u dhashay. waxa kale oo weli ka sii jiray dareenkii halgankii daraawiishta. waxa dardar iyaguna sii galay dadkii wax ku soo bartay Suudaan iyo Cadan. dadkii baraarujinta sameynayay xilligaasi waxa ka mid ahaa Xaaji Faarax Omar oo ka mid ahaa shaqaalihii maamulka Ingiriiska. hase yeeshee markii dambe guubaabadiisii awgeed markii loo adkeysan waayay Ingiriisku u masaafuriyay magaalada Cadan. markii uu Cadan tageen Xaajigu halkii ayuu ka sii waday isagoo jaraa'idka wax ku qoraya jiray araajina u soo gudbin jiray xukuumadda Ingiriiska uu ku sheegayo mowqifka iyo aragtida dadka Soomaalida. sanadkii 1935 dad u badnaa ganacsata yaryar ayaa magaalooyinka Berbera, Burco iyo Hargeysa ka bilaabay urur siyaasi ah. waxa xilligaasi soo baxay urur la odhan jiray SNS Somali National Society oo ujeedadiisu ahayd horumarinta waxbarashada iyo wax ka qabashada khilaafka qabaa'ilka. sanadkii 1937 shaqaalihii maamulka Ingiriiska ee Soomaalida ahaa ayaa urur samaystay la odhan jiray Somali Official Union. markii haddaba uu bilaabmay dagaalkii labaad ee adduunyada bishii August sanadkii 1940 ayaa Talyaanigu Ingiriiska ka qabsaday dhulka Somaliland oo Ingiriisku ka talinayay. hase yeeshee muddo 7 bilood oo kaliya ayuu haystay. Ingiriiska ayaa markaasi qabtay labada qaybeed oo Soomaalida markii dambe. waqtigaasi Ingiriisku haystay koonfurta Soomaaliya dhaqdhaqaaqyo ayaa ka bilaabmay siyaasadeed kii ugu xooga roona uguna muhiimsana waxa uu ururkii la odhan jiray
Somali Youth Club amaba SYC oo bishii May 13keedii 1943 laga furay magaalada Muqdisho kadib markii muddo toddobaad ah lagala xaajoonay furitaankiisa iyo dastuurkiisaba sarkaalkii xagga siyaasadda ugu qaabilsanaa Ingiriiska ee waqtigaasi halkaasi fadhiyay. naadigaasi waxa uu ka koobnaa 13 xubnood. dhiirigelinta ururkaasi raggii ugu xooga badnaa waxaa ka mid ahaa Cabdulqaadir Sakhaawadiin, Yaasiin Xaaji Cismaan Sharmaarke iyo Xaaji Maxamed Xuseen. 3 sano kadib waxaa rasmi ahaan xubno uga ahaa 25,000 oo qof. sanadkii 1947 waxaa naadigii SYC uu isu bedelay SYL, waxaana uu laama ku yeeshay Ogaden, Hawd, British Somaliland iyo Kenyaba. SYL waxa ay bilowday dugsiyo, waxaana la dhiirigeliyay fartii Cusmaaniyada oo yeelatay muhiimad wadaninimo. Aw Jaamac Cumar Ciise ayaa inooga warramaya. waa nimankii leegada curiyey 13 leegada ayaa la yiraahdaa. Ingiriiska u tageen oo waxay yiraahdeen waxaad noo ogolaataa meel kilaab ah oo aanu ku sheekaysano waxna ku baranno. maxaa yeelay dawladdii militariga ahayd oo Ingiriiska ahayd ee markaa dhulka joogtay ayaa waxay doonaysay niman dhalinyaro ah oo wax la baro oo xafiisyada iyo ka shaqeeya. dhibaato kale ma kulmina waa u ogolaaday. marka waxay soo saareen 4 qodob oo waaweyn. qodobka u horeeya waxa markii horeba waa ugu jiray wax tacasub qabaliya in la sheegin, wax kala soocidi inay jirin, wax dariiqooyin ah oo la kala sheegtaa inay jirin, wixii ummadda kala kaxaynaya oo dhan oo tafarruq keenayana in la dagaalamo. xuquuqda Soomaalida meel ay joogtaba in la raadiyo. shanta Soomaali ee kala go'aan in la isu keeno. isticmaalku meel joogaba in laga hortago oo dhulka laga saaro. gobannimo iyo istiqlaal si lagu gaaro in habkeed loo dagaalamo. shanta qodob ayay markii hore dhigeen. xillidaasi Ingiriisku uu wada talinayay Soomaalida ee dagaalkii labaad kadib Ethiopia waxa markaaba ay ku jirtay in loo soo celiyo reserve area dhulka la yiraahdo oo markaas heshiis ay kula gashay Ingiriiska sanadkii 1942 iyo 1944 heshiiskaasi oo Ingiriiskuna ogolaaday. Talyaaniga oo laga qabsaday dhulka koonfurta Soomaaliyana waxa uu ka shaqeynayay sidii uu isaguna ugu soo laaban lahaa halkaasi. sanadkii 1946 ayaa wasiirkii arrimaha dabadda ee Ingiriiska Ernest Bevin waxa uu soo jeediyay in danta Soomaalidu ay ku jirto in wadan kaliya loo wada dhiibo. taladaasi hase yeeshee waxa ka soo horjeestay oo diiday Ethiopia. 3 wadan ee kale ee dagaalkii ku guuleystay iyaga la fahaantooda miisaan arintaas lama yeelanin. 4 wadan ee haddaba dagaalkii labaad ku guuleystay ayaa waxay guddoon ku gaareen in guddi ay u diraan wadamadii Talyaanigu haysan jiray ee laga qabsaday si loo soo ogaado dareenka ay qabaan dadkoodu. wadamadaas waxay ahayn Soomaaliya, Eritrea iyo Liibiya. bishii Janawari 6 sanadkii 1948 ayaa guddigaasi gaadhay magaalada Muqdisho. marka ay guddigu gaareen magaalada Muqdishona waxa ay la kulmeen kala qaybsanaan Soomaalida dhexdeeda, waxaana kuwa iyagu taageersanaan Talyaaniga loo dhiiba ay la soo baxeen calamadii Talyaaniga iyo halkudhegiya Talyaaniga. hase ahaatee guddi waxa ay codsadeen in SYL loo ogolaado inay sameeyaan banaanbax ay ku eegaan dadku sida ay doonayaan 11 bishii Janaayo sanadkii 1948. hase ahaatee Talyaanigii meesha joogay iyo kuwii taageersanaa ayaa iyaga oo hubaysan soo baxaysay ay u kala jebiyaan kulankii SYL ay qabanqaabinaysay. halkaasi dabadeed waxa ka dhacay dagaal ay ku dhinteen ilaa iyo 50 qof oo Talyaani sida ku qoran buugga la yiraahdo A Modern History of Somalia oo qoray professorka la yiraahdo I.M. Lewis. haddaba Cabdulqaadir Maxamed Aadan oo soobe ku magac dheer oo kamid ahaa ragga muddada dheer iyo ku jiray siyaasadda Soomaalida ayaanu weydiinay kuwa Talyaaniga doonayay waxa barnaamijkoodu ahaa. January 1948 waati qodon iyo 3 Talyaani lagu dilay, waati dhibaato ka dhacday, halkii waa la noqday. maxay dhibaatadu ka dhacday la isku dilay? waxa la isku dilay groupkii watay Talyaaniga iyo groupka leegada oo qeylinayso oo lama suurtooyso yaa iska hor yimaadeen. marka qoladan Talyaaniga wadata yahaan horta markaas conference la dhihi jiray waa kuwa adeesha asaabti kala isu tagtay ahayn. maxay doonayeen? waxay doonayeen Talyaani waxay ku doonayaan muddo 30 sano inuu sii hayo inuu yaraan al aqal يعني أي لا نقطة 30 سنة كدب قبل ما هذا الصير ساسي وتين
kontonkii yaa waxaa la gooyey November inuu Talyaani meesha joogo 10 sanana istiqlaal dadkan gaarsiiyo. bishii November haddaba sanadkii 1949 ayaa golihii guud ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa muddo 10 sannadood u xil saaray Talyaanigu inuu xukumo koonfurta Soomaaliya. 1948 ayaa Ingiriisku isna go'aan ku gaaray in dhulka Soomaalida ee maanta ka tirsan Ethiopia uu ku wareejiyo sidii ay dhigeen heshiisyadii labada dhinac dhex maray sanadihii 1942 iyo 1944. go'aankaasi oo jigjiga laga dhawaaqay waxa ka dhashay rabshadahaasi oo ay ku dhinteen dad tiradooda ay gaadhiso ilaa 25 qof oo Soomaaliya. hase yeeshee 23 bishii Sebtembar sanadkii 1948 ayuu Ingiriisku Ethiopia ku wareejiyay dhulkaasi. 29 November 1954 ayaa Ingiriisku heshiis cusub uu la galay Ethiopia oo kaga baxay dhulka la oran jiray Hawd iyo Reservoir. goorma ayaa haddaba Ingiriisku u sheegay dadka Soomaalida ah inuu bixiyay Hawd iyo Reservoir. waa kan Umar Artaqaalib. sanadku markuu ahaa 1954 waxaanu markaa dawladdii Ingiriiskeena xukumaysa weydiisanay inaanu soo barano dalkayaga. that means Somaliland waanu naqaane Hawd and Reserved area ayaanu doonayna inaanu soo baranaan ku nidhi. markaa markiiba la dambay la xidhiidheen waxay yidhaahdeen nimankii macallimiinta ahaa waxay soo mareen Reserved area dabeet waxayna weydiiyeen why macnuhu waa maxay Reserved area maxay reserve u tahay. su-aalihii aan weydiinay oo dhan bay u sheegeen. markiiba dawladda Ingiriisku way soo jawaabtay waxay tidhi u sheega waktigii baa la gaadhay ay waajib noqotay in loo sheego heshiis sir ah oo inaga dhexeeyey haddaynu Ingiriis nahay iyo dawladda Ethiopia oo la kala saxeexday 1944 taasoo tixraacaysay heshiis kale oo 1897 la kala saxeexday markii xuduudda Afrika la sameeyay. 28 February 55 ayaa lagu dhawaaqo la yiri dhulka la yiraahdo Hawd iyo Reserved area malihidin Ethiopia ayaanu ku wareejinay. intaas markay dhacday magaalo kasta waxa laga sameeyay mudaharaad. ninkii hadlaabana uu ku halqabsaday wuxuu yiri Ingiriisku khiyaamay. sidii aan horeba u sheegnay 29 bishii November sanadkii 1954 ayaa Ingiriisku saxeexay heshiis cusub oo la galay Ethiopia oo uu kaga soo baxay Hawd iyo Reserved area dhulkii la oran jiray. mudaharaadyo ballaaran ayaa ka dhacay Somaliland oo lagu diidan yahay dhulka Ingiriisku uu wareejiyay. waxaana markiiba la qaban qaabiyay wufuud in loo diro London iyo New York. abril sanadku markuu ahaa 1956 ayaa wafdi ka socda guddiga baarlamaanka Ingiriiska ugu qaabilsan xiriirka dibaddu ay tageen Ethiopia si ay ugala soo xaajoodaan Ethiopia dhulka la isku haystay ee Soomaalida oo ay doonayeen inay dib uga iibsadaan. hase ahaatee uma suuroobin. 25 bishii August sanadkii 1956 ayaa boqorkii la oran jiray Haile Selassie ee Ethiopia markaasi ka talinayay hadal uu ka jeediyay magaalada la yiraahdo Qabri Dahare. waxaana uu ku sheegay in Soomaalidu ay ka mid yihiin qoyska weyn ee Ethiopia. wahagaag dhegeystayaal intaasna waxaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii saddexaad oo ka mid ah barnaamijyadii xiriirka ee aanu kaga hadlaynay taariikhda Soomaalida.